maanta ay tahay 8 November 2023 وإنه لو كنا استحت أفرلا تنكا صدقت ما كنا نوفمبر إن سودي أرنا ندور شدي من الحتوية وحالا كان قاعدين يا إن نحس بيه كل مية عن حبين يحل بكهي عن لبضي ببنية رنتي سببها إنه بنية عن وقتجي حس بجا وحويا تشجي يو وسوي ماشيها عن لبضي كونية تطبيق توانكي كل سنة من الحوينها غرق جبلت شمالا إن أنا مدحوين تطبيقات سنوات حلك هاي كحسبي أنا نطلع يار إنتونا نقول صون نقول تطبيقات سنوات حيد عينها إنه كوا ورقة من الدبانتين عندنا نقطة حق أمني وغدوكتي حالة أمني قدلك على كم رئيسه بلي سمال لما بعدين فوزي دفاعانية وعيدا موضة سمستي يعني وقارو مقاعدة وقارة وين وقنا هيو معيشة دي قرن كوال كم رئيسه وين وقنا هي حالة دي وين كوا ورقة بنا حنسدو كلا وقنا هي وحصوصار كي تلكي المانتا هالكي وليدتين ومريو sidoo kale waxaynu ognahay xaaladii dhalinyarada dalku maanta halkii marayaan oo reer iyo dhalinyaradii ay u kala fadhiyaan waxaan macno badan u sameynaynin oo aan danahooda ahayn dawladii jahayn lahayd iyo dadkii jahayn lahaana aanay jirin runtii 7 sanadood wixii dhacay oo dhan qof reer Soomaaliland uu ka dheregsan yahay maanta waxaynu kala dooranaynaa waxa weeye waa nin cusub oo hogaamiye cusub ay leenahay ballinka aynu eegno aynu tijaabino maanta iyo 7 sano hore wixii dhacay de inaynu dib ugu noqono oo mar labaad farteen eedno halkan waxaan uga soo jeedinayaa dadka reer Soomaaliland dhamaantood inay isbedel ka qayb ka noqdaan dadka reer Soomaaliland waxa ku wada socdaan waxa weeye inay dalkooda Jumhuriyadda Soomaaliland madax banaanaado waxa ku wada socdaan in horumar la gaaro waxa ku wada socdaan in dhalinyaradeenna wax la baro waxa ku wada socdaan in caafimaad ay helaan waxa ku wada socdaan in Soomaaliland sharaf lahaato taasina waxaan filayaa inaanay 7 sanadood wax badan aanay ka suura gelin madaxweynuhu mahadsan wixii uu qabtay wax laga dafiri karo maaha oo wax taariikhda ugu qoran maanta waxaanu dooranaa Cabdiraxmaan isagana dalka halka ka sii wada doona oo meel wanaagsan gaarsiin